maalmihii ugu dambeeyay aad daawanaysin maanta barnaamijka waxa marti ku ah saaxiibkay al-ustaad madaxweynaha mustaqbalka soo dhawow mustatake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولي بي برو thank you very much أنا أقوم ارتقاده برنامج كان وكذا مهد علينا ما شاء الله waxay ugu maqaala inaad maartay madaxweynaha mustaqbal u sharaxan tahay bal noo sheeg bal arintaasi maxaa ka jiro well saad ogeed bahoraba ugu ogeed waxaan ahay hogaamiyaha xisbiga tala ku nool yes madaxweyne xisbigeena wuxuu go'aansaday inaan xilka wadanka aan raadino si aan wadanka u samato bixino madaxweynihiina qofkii musharaxa anigu noqday sidaasaan ugu sharaxanahay musharax madaxweyne wadanka jamhuuriyadda islaamka ee Soomaaliya hadii la yiraahdo ma sha Allah waxa jiraan maartay niman badan jiraan oo u sharaxan qabashada xilka maartay uu sareeyo maartay dawladda maxaa isleedahay inaa ugu duwan tahay maartay dadkaasi waxaan uga duwanahay waxaan anagu uga duwanahay anagu waxaan raadinaynaa dawlad islaam ayagu dawlad islaam raadinaa anagu waxaan rabnaa dastuurka islaamka in la qaato ayagu wax ku qanacsan dastuurka gaalada saasaan uga duwan okay macnaha hadda ma waxa leedahay dawladda hadda oo maartay dhisan laftirkeeda dawlad islaam ma dastuurka hadda inoo qoran ee wadanka Soomaaliya maanta ay haysato waa dastuur diinta islaamka ku soo horjeeda okay adiga de ololaha dadka meel aada marba maartay dalka dibadiisa marso wadanka gudihiisa adiga tolofka isliin ka dhax ka beegareeysa si amal ololaha ma dhaafay bi isliin markuu horeysa anaga ololaheenu wax waay waxaan isticmaalaynaa nidaam cusub oo ka duwan nidaamkii hore la yaqaan nimankaan aragto mar Turkiya aadaaya mar dibadaada waa niman ku xiran wadamo shisheeye oo interest shisheeye waa loo yeeraa waa rag la xukumo anagana lama xukumo anaga is xukumo كامبينكنا wuxuu ka socdaa Kismaayo xafiisan ku leenahay hadda Muqdisho midaan hadii la yiraahdo dhawaan ka furaynaa barbarana baana burcana waa noogu furan yahay Hargeysa insha Allah sidoo kale kambiinka wadan gudihiisa ka socdaa nimanka aragto marka loo yeerayo safarka ayaan kasta galay waa niman la xukumo loo yeerayo marka anagana lama xukumo saasaan isli kula jooga aan deganahay loo jeedaa inaan qofna aanan xiriir la lahayn aanan ka ahayn anaga nafteeda okay xisbigiina marka ma xisbi diimeeda ma xisbigiina muxuu ku salaysan yahay waa xisbi ay ku midoobeen fikir iyo ideology dad isla wadaaga oo ah fikirkaas iyo ideology-gaasna ay tahay in dastuurka kaliya xalka kaliya ee wadanka Soomaaliya uu leeyahay ay tahay in lagu maamulo dastuurka islaamka sababta saasuna waxay tahay qofka bini'aadamka ma haba jirta tiraahda calaamadaha lagu garto qofku inuu waalan yahay waxa kamid ah hadii aad samayso waxaad weligaa samay jirtay haddana aad raadiso ama aad rajayso maxsuulkii ku soo bixi jiray maxsuulka dibna ku soo baxo anaga ilaa 1960kii dastuurkan aan hadda haysano iyo nidaamkan hadda aan haysana dagaalna waa ka bixi weynay inqilaaban ka bixi weynay wadankii dadkii waa naceen qabyaalada ka hormartay wadaniyiin ma aha dadkii Soomaaliintooda badan waa qabyaaladiisti marka si looga baxo arintaas waxaan keenay nidaam cusub iyo fikir cusub dastuurka islaamka ku dabaqan kaasana wadanka rabnaa inaan ku soo bixino waxaana marka dad islaam ahna kulliga ololaha doorashada awdid xilka madaxtinimada u tartamaysid saameyn inta la ku yeelan kartaa arintii lagu soo ogaayay maartay farxasle waa dambiile maartay taakay qaladaad noocaas oo galay calankii ku soo horjeeda maxaad isleedahay well marka ugu horeysa calanka waaba nidaamka anaga aan u kaambeynayno ku jirtaa calanka inaan bedelo anaga waxyaabaha hadii markaan xilku guuleysano campaign-kana ku jirtaa waxa weeyaan calanka iyo astaanta qaranka inaan bedelo soo taas eedayn maaha waa waxaan diyaar u nahay waa waxaan aan u taaganahay waxyaabihii kaleeto waa baabeen waxay ahayn beenay ahaayeen hawada raaceen wuxuu haday beenii ma soco karaan marka saameynta hadda maanta bulshadii aan ku leenahay aad ay u badan tahay xisbigii dadkii oo ku soo batay dad badan soo galay maalin kasta la soo galaa marka alxamdulillah okay runaantii waxa waaye horta waxa waaye ma sha Allah waxa ku jirta nimanka odayaasha hadda maartay oo uga xaasaska maartay wanaagsan uga xaasaska badan meeshan maartay xaas kuma codeynayso qabiilkeedana kuma codeynayo meesha waxa codeynayo waxa waa xildhibaanadaasna lacag bay qaataan maxaa ku qorshaysan marka adiga waa runta anaga waxyaabaha ku jirta nidaamkeena ama campaign-ka ku wadno wariye big bro waxa kamid ah kow in laba baasaboor xil u diido oo qof laba baasaboor wato uusan xil qaban labo in qof democracy aaminsan aan xil aan u ogolaan because democracy waa diin kale waa ka soo horjeednaa qof 4.5 aaminsan inaan meesha ka tirtirno dadka marka maanta xildhibaanada ku jira ama wadanka jooga intooda badan waxay u badan yihiin dad nidaamkaas aaminsan soo waa ognahay cadawgeena inay yihiin laakiin annaga waxaan xafiis rabnaa inaan ka furano quluubta dadka islaamka ee Soomaalida ee aaminsan diinta islaamka wadanka lagu dhaco
halkaas markaan awoodeennu ay tagto qofna nama celi karo waa awooddii waddanka waa awooddii shacabka marka waxaan rabnaa nidaamka hadda maanta jiro dhan inaan bedelno oo nidaam cusub aan keeno sidaa sheegtay waxaa dhacday laba baasabooro qofka haysto inaan maaragtay aan xil loo dhiibay mase in maaragtay waddanka laga ilaaliyo asagoo markaasi jaajuus mase waxyaaba noocaas oo ku tilmaantay gabdhihiina waxay rabaan oo maaragtay adiga madaxa u ahayd mase adiga markaasi oo maaragtay ku hoos imaanayay waxay rabaan niman diaspora ah laba baasabooro wataan gabdhahaasna maxaa ku xalinaya arrintooda well very big bro waa ciladaha waddanka jira ka mid tahay arrintaas waa runtii waa very delicate subject waay gabdhuhu dabcan intooda badani way arkeen gabdhihii waxaan aaminsanahay hadda gabdhaha intooda badani maanta ma hubo laakiin inay ku qanacsan yihiin wiil waddankooda la joogo oo ay isla jiiftaan oo isla xamaashaan nin intuu u yimaado 2 bilood la joogo ay ka tagay aysan rabin marka arrintaasi waxaan u malaynayaa waa sidaas maasha Allah masataakay waxaa tahay nin dhalinyaro ah run ahaantii waan dareemi karaa balwadaada maxay tahay maxaa jeceshahay xilliga nifaaska aad leedahay oo kale inaad qabatid mase aad samaysid well runtii big bro waxa weeyaan nifaaskaygu maba jiraba waqti nifaas aan leeyahay ma jiro waqtigaygu wuxuu u kala qaybsan yahay nin aan xaasas badan leh ilmo badan leh alxamdulilah ilaah maadda iskale waqtiba ma ii soo haraba waqtiga yarkoo ay soo harana waxaan ku isbanagaray inaan wax akhriyo research baaritaan aan sameeyo okay kale nin dhalinyaro u eg tahay kubadda cagta maaragtay heer qaran oo maaragtay Premier League iyo maaragtay Spanishka teamka taageerta waxaas waqti ma bahayo weligay Ilaahay banooni ma fiirsan noloshayda intaan noola xataa markaan hadda oday aan ahay xataa intaan yaraa markaan yaraa weligay Ilaahay sports intaan TV hor fadhiis weligay ma fiirsan inaan ciyaaraha laakiin inaan fiirsado never ma dhici weligay xataa okay yaa kugu dhalay inaad madaxweyne isku soo sharaxdid well madaxweyne inaan isku soo sharaxno xisbi ahaan waxaan ugu dhaliyay duruufaha waddanka ka jira iyo dhibaatooyinka waddankeena waa u danqanay waxaan aragnay waddanka inaysan dhibaatada ka jirtahay xalkeedu inuu yahay dad aan ku xirnayn dawlado shisheeye aan la wadanin inay u istaagaan maana xal kale inaysan lahayn dadkiyaanana masataakeenee waddanka ma lagu aamini karaa waddankaana ma lagu aamini karaa waddanka dad badan oo ka dhexeeya dada maaragtay kaadida soo cabay dhibaatooyin badan oo soo maray adigana koodii waxa ka soo bilowday isla markaa adigoo maaragtay xilhaynin si oo maaragtay xogaa nin adag oo kale oo maaragtay inaad ku soo gashay oo calankiiba koodii ka bilowday kadib xogaa cabsi badana jirtay aad u maasanta horta waxaa ku nool waddankeena dad badan oo soo halgabay dad badan oo u dhinto maanta qabri ugu jira laakiin dadkaasi maanta hadday ogaalahayn waddankii ay u soo dhinteen waddankii ay u soo dagaalameen sida ragga Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Axmed Gurey oo kale iyo xalano oo leh waddankay inta u soo mareen iyo 10kii wadaad ee Siyaad Barre dawladdiisa ay u toogatay markay yiraahdeen nin inaag lama sinna dadkaasi maanta hadday ogaalahayn qaabka aan ahay waa ooyaya ooyini ku jiraan macna waxay ka qaracsan yihiin waddankii ay intaas oo dhib u soo mareen iyo maanta meeshu taagan 10 nin مثلا usoo macnaha 10 sheekh Siyaad Barre u toogtay ee uu yiri markay yiraahdeen nin inaag ma sino shuuciida ma qaadanayno uu yiri hal toogto maanta dastuurkeena waxa ku qoran nin inaag inay sameeyeen waddanka markii in la badbaadiyo u baahan yahay marka waddanka waxaan aaminsanahay anagu xisbiga talkuun hadaan nahay in la ku aamini karo anagu inaan nahay waayo anagu xataa hadaan qalad sameeyno qaladka aan sameeynay waa mid aan ku sameeynay anaga iyo aqligeena iyo karti la'aanteena iyo anaga wax naga yimid ciladaan leenahay laakiin ma u sameeynayna qalad in dawlad shisheeye ama interest shisheeye anagu ka turjumayna ma u sameynayna marnaba okay kowda luulyo iyo maalmaha maaragtay oo sanadaha maaragtay loo dabaaldego maxaa ka qabtiin well arrintaas waa faafinay kowda luulyo iyo 26 Juun waxaan u aragnaa inay tahay qalad in loo dabaaldego completely taariikhdan waa qalad nidaamka ay wado oo ay dadka ka dhaxlayaanna waa qalad labaduba arrintan aad la soo taagan tahay madaxweynena waa rabtaa arrintan ii dheh miyaa mase wax saxa waa inaad xil rabtid absolutely sidee ku dhacday marka inaad maaragtay 26 Juun iyo kowda inaad tirahdid maaragtay waa qalad waana dembi wariye waxaa la rabaa marka ugu horeysa waa runta dad badana reactionka hadda falcelinta hadda ka soo baxday dad badan ka soo baxday oo ah macnaha markii aan ku sheegay inaad yaabtay oo gacmaha qabsatay see ku dhici karta laakiin xaqiiqda aan ka wada hadalno xaqiiqda rasmiga ah waxay tahay taariikhda Soomaaliya maanta u qoran waa qalad inaan dib ugu laabano dib u habayno dib u qorno sababtan aan ku sheego magaalada aan ku nooshahay Nairobi waddanka Kenya annaga ma naga madow yihiin inta badan annaga ma kacadna marka caadi la yiraahdo gabdhaheenu waa isii cadeeyaan sababta keenta ma taqaan waxaan u dabaaldegnaa dhaqankii ninka cadaanka wiilkii waxa ka dhaadhacsan wiilka dhalinyarada waxa ka dhaadhacsan gabadha ka caddahay inay ka fiican tahay
midabkaas caddaanka inuu ka fiican yahay maxaa keenay wiilka Soomaaliga waxa ka dhaadhacsan inuusan la tartami karin ninka Westernka dhaqanka iyo caqliga iyo saynsiga iyo siyaasadda asaga in looga dambeeyo maxaa keenay kooda luuliyo iyo 26 Juun daawaan u nahay wadanka anagu haddaan tala ku nool okay xildhibaano ma ku leediin tala ku nool hadda tiin dawladda federaalka ay hadda dhisan xildhibaano no qof tala ku nool fikirkeeda aaminsan dawladda xildhibaan hadda dawladda jirta ama dastuurka hadda jira ma qaadan karo annagu fikirka aan aaminsan waxa weeyaan dastuurka maanta jira inuu yahay dastuur qalada diinta islaamkana ka soo horjeeda haddii macnaa isma qaadato marka inaad rabtid dastuurka islaamka haddana aad ku dhaaratid ama aad boqshid dastuur kale oo ka soo horjeeda dastuurka islaamka isma qaadato anaguna ma nihin dad noocaas haddii la yiraahdo lacala horta wayba jirtaaba oo maartay xagga maartay markay noqoto doorashada madaxweyne lacaga la kala qaata xildhibaanada xildhibaan walba hadduu yiraahdo waxaan rabnaa $30,000 inaad maartay aad ku iibsataan codkiisa ma iibsanaysaan no wina annaga wax lacag la yiraahdo lacagta kaliya oo haddaan reetal ku noolaa naga baxdaahi waa lacagta aan ku samayno campaign-ka oo lolaha iyo wacyigelinta si aan dadka u gaarno waxaanan rabnaana annagu shacabka Soomaaliyeed in uu gaaro awood uu ku doorto qofka uu asagu rabo inaan laga soo doorin Stockholm iyo Washington DC iyo inaan laga soo dooran dadka because hadda meeshan halka doorto waa meeshaas ma aha Soomaaliya shacabku ma doorto lacaga la soo siiyo qofkii interest danka loo wada laba baasaboor la weeyay wadankii daacadku ma aha saan ku bilowna hadda wareysiga ayaan markuu joogaba UK waada ama Ingiriisku waada ama Mareykanku waada ama Switzerland waada waa loo yeeraa ila laba baasaboor wata wadankaasna xuquuq ku leeyahay qofkaas waa la xiri karaa waxa lagu qasbi karaa sirta wadanka inuu bixiyo xorma aad laftirkaada waxay san jirtay baasaboor maartay oo ajnabi ah weligay baasaboor ma qaado never in my life weligay baasaboor Canada iyo Spanish iyo meelahaas markaa joogtay America ma baasaboor ajnabi ma wadan no weligay baasaboor ajnabi ma qaado baasaboor maxaa wadan baasaboorka Soomaaliga iyo travel document wax la yiraahdo travel document maxaa wadan travel document wax la yiraahdaa مثلا markaad rabtid inaad wadan aadid waxa lagu siinaa warqada ku safartay sida warqada inta go home oo kaleeto ama warqad oo ma travel document go home isku mid mahana u malayna go home kan waxa waaye wadanka la hal mar ku tagay Soomaaliya hal mar ku laabanay laakiin kaas waxa waaye waxa lagu siisaa baasaboor maya baasaboor marka aan waxaan ka wadnaa dhalashada wadanka qofku inuu qaatay ina u dhaaratay kitaab jaamaca ku martay inaad dastuurkaas difaacaysid inaad tahay citizen of wadankaas laakiin qofka waxa la sii karaa markuu wadamadaas tago waxa la sii karaa travel document wax la yiraahdo qofkaasi wuxuu sheegtay emergency ama waxbarasho u socdaa safar meeshaas ku tag waa marka wadanka inaad ku tagto uga soo laabatay bis waana tuure baasaboor ajnabi ma ka weligay baasaboor ajnabi ma qaado okay gabagabadii barnaamijka asxaabta ku daawanayso meel walba ay joogaan Soomaalida maxaad ugu baaqleed adigoo musharax saa sheegatay musharax madaxweyne waa mahadsan tahay dhammaanba shacabka Soomaaliyeed horena waa hadalnay markale ku celinaynaa waxaan ugu baaqaynaa annaga waxaana xisbi siyaasadeed waxaan u taaganahay in aan hirgelino in wadankeena Soomaaliya lagu maamulo dastuurka islaamka diinteena islaamka in lagu maamulo dastuurada kaleeto annagu malihiin nooma qorna nama qoseeyaan ma qaada karna xataa inaan faraha ka qaadno dastuurka islaamka oo aan aaminsanahay oo ku dhaqanno oo adigu xalaala ku dhalatay aabahayooda waa ismeersadeen Allah subhanahu wa ta'ala diintiisa ku dhaqmaan kaas inaan qaadano intaas nagu baaqaynaa waana mahadsanyihiin aad u mahadsantahay waqtigaada kaaga mahadcelina